madaxda maamulka Jubbaland ayaa loogu baaqay inay si degdeg ah u fasaxaan shaqada xafiiska RTN ee magaalada Kismaayo oo maalmo ka hor maamulku ay albaabada u laabeen. haddaba wararinka ku aadan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha RTN Maxamed Xasan Qays. shirar maalmihii u dambeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho uga soconayay odayaal siyaasiyiin waxgarad ka soo jeeda beeshii qaal oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana shirkaasi ahmiyadiisu ay ahayd ama looga hadlayay dhibaatooyin maamulka Jubbaland uu ku hayo qaar kamid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan beesha Shiiqaal. siyaasiyiintii kulanka ka qayb galay waxaa kamid ahaa xildhibaan hore Cabdiqaadir Sandheere waxa uu sheegay in maamulka Jubbaland dhulboob uu ku hayo beeshaasi isla markaana aan loogu dul qaadan doonin sida uu hadalka u dhigay. dhulka beeshaani waxa ugu taala dhulkeena waxa ku taala calaamad waliba anigu waaqaana geelayagu sumad saasuu lahaa sida Soomaalida kale dhulkoodu uu calaamadeysan yahay oo la yaqaanaa reer hebel meesha ay degaan ceelasha ay leeyihiin waxa ay leeyihiin bay beeshaanina meel kastoo ay degto dhulkoodu calaamadeysan yahay. koow tan labaad ama Amazon ha ahaado ama barakalo xoog la ha ahaato dhulka qofkii qabsadaa ma leh waxa dhulka weligiis leh qofkii lahaa 100 sano haday haystaan xataa dhulkan waa calaamadeysan yahay beeshaana cidii xoog ku qabsataa dhulkeeda 100 sano ha noqoto haday rabto calaamadaas ugu taala waana ku dagaalamayna. odayaashii kulanka ka qayb galay oo iyagana ku dheeraaday dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin jirdil iyo xabsi iyo waliba dhulboob ay sheegeen in maamulka Jubbaland uu mas'uul ka yahay oo lagu hayo beeshaasi si gaar ah ayaa tilmaamay in aan loogu dul qaadan doonin arrimahaasi. ogow cidda kaliya ee kugu haysata dhulka oo waxna ka qaadi karna inaan nahay ogow ay beeshan ay u taagan tahay saacadan laga bilaabana muxuu ahaa saacada laga bilaabana xildhibaankeena sidoo yiri aka garabku igu jira ana 67 sano aan jira qodno yaa dhashay wallahi inaan ka yeelaynin billahi ka yeelaynin reehosugo ila xasuuqo waxa ay soo gaartay inaad leedahay muxuu ahaa meesha al-shabaab baa degan oo waxa la yiraahdaa ansaari hala baabiyo inaad tiri ayaa soo gaartay wallahi inaan ka yeelaynin ee waxaad haysaa nin yahow saldanada hadaa rabto inay ku sii jirto dadka wax ku qabanaya la qabso wax markii laga soo tagay hatta maamulaha dawladda hoose aan lahayn jirnay noola ogolaaday hadda uu banaayay nin in la geeyo hatta waa la diiday laba nin oo maxamed jawhar wasiirka cadaaladda markaa kuna maxkamadaha u geeyay labadaas ka dhax shaqeeyeen meesha xaafadaha shanta waxba ku maamulku ma lihin tikid wax kuma lihin wixii la qaybsanayo dhan waxba kuma lihin heer degmo ilaa heer gobol waa la og yahay beenyaan la isu sheegin dadka gadaal ay wax ka xantaan aniga haliidulo waa sheega runtaan sheega. gabagabadii kulanka bayaan ka soo baxay shirarkii maalmihii u dambeeyay u soconayay beeshaasi waxaa warbaahinta u akhriyay Dr. Maxamed Axmed Cali. shirweynahan beesha Shiiqaaleed u socda 3 maalmood ee looga hadlayay arrimaha beesha Shiiqaaleed jubbooyinka ee Kismaayo gunaanadkii iyo gabagabadii waxay noqotay falanqeyn iyo dood dheer kadib go'aanadan soo socda ayay beesha Shiiqaaleed go'aan ku gaartay la iskuna raacay shirkana ka soo baxday. koow in la helo lana raadiyo xuquuqda aan ku leenahay Kismaayo iyo Jubbaland. qodobka labaad wuxuu yahay in garoonka Kismaayo loogu magac daro Generaal Maxamed Ibrahim Liiqliiqato. qodobka saddexaad wuxuu yahay in la joojiyo
dhulboobka lagu hayo deegaanada beesha shiiqaaleed ee Kismaayo gaar ahaan waxaan u sheegaynaa umul boobka oo ku hayo dhulka shiiqaaleed hore ayuu u xalaaleeyay waraabe maanta wuxuu xalaaleeyay dhulka shiiqaaleed ma ka yeeleyno xalaaleen ma ka yeeleyno dhulka shiiqaaleed in la xalaaleeyo umul saasaan u sheegaynaa beesha caalamka waxaan u sheegaynaa in barakicin deegaan ee ka socoto magaalada Kismaayo qodobka shanaad waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada maal gashanaysa deegaanada aysan lahayn in ay joojiyaan haddii ay jooji waayaan wixii khasaaro oo ka yimaado ayaga mas'uulka ah Maxamed Xasan Qays RTN TV magaalada Muqdisho.